ka dhalata. ugu yaraan 19 qof ayaa ku geeriyooday ilaa 60 kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxyo xalay ka dhacay magaalada Muqdisho. qaraxu waxa uu ka dhacay oo lagu bartilmaameedsaday qarax xooggan oo khasaare naf iyo maal baa geystay gelinkii dambe in uu ka dhacay qarax. Al-Shabaab waxay hadda isticmaalayaan chemicals ka awood badan kuwii hore. aaladaha laga sameeyay qaraxyada soo galitaanka dalka ay soo galaan oo fududaatay taasoo ay ka mid yihiin maaragtay waxyaabahan loo yaqaan fertilizerska oo lagu bacrimiyo beeraha waa la control jiray intii anaga aan joognay hay'adana wasuugadana waxaan sameynay inaan ka mamnuucnay budada laga sameeyo qaraxyada ee loo yaqaan TNT waxay si toos ah uga soo degtaa dekedda magaalada Muqdisho. shakigaas aad u jira ma ahana taas kaliya ma aha wixii ay isticmaali jireen maaragtay budada awood badan iyo ka tira badan ay heleen sababtoo ah waxaanan jirin controlki lahaa oo ku qaban lahaa marka la keeno dekedda la keeno ilaa bahashan ragga keena haddaanan laga warqabin oo aanan maaragtay la baarin maxaan ku yiraahdaa waa fududaanaysaa inay u soo degto oo ay gaarto kooxda shabaab isla markaasna ay ku sameeyaan qaraxyada. muddo 8 bilood ah cadceed waxa ay soo baxaysay iyadoo ay qorshaysan tahay dilka sarkaal ka tirsan hay'adda NISA. Saako, Bu'aali iyo Buurdhuubo dhammaan deegaanadaas waxaa lagu dilay ilaa 20 iyo sirdoonka qarsoon ee hay'adda NISA. wuxuu meeshii ka soo buuxiyay NISA nimankii amniyaadka ee Al-Shabaab u shaqeynayay taasoo khalkhal badan gelisay oo maanta aan la kala ogeyn cidda Al-Shabaab iyo cidda NISA oo dadkii iyo siyaasiyiintiiba ay runtii cabsi xad dhaaf soo gashay. September 22keedii 2018 Aamina Xuseen Faarax oo ka tirsanay darcadda hay'adda NISA ayaa lagu dhex joogtay fasalkii ay xiisadda ku qaadanaysay yaa farta ku soo fiiqay Aamina. General Cabdalla oo ahaa taliye ku-xigeenkii hay'adda NISA qoraal uu la wadaagay madaxweynaha Soomaaliya ayuu uga digay in xubno Al-Shabaab ah uu Fahad Yaasiin ka shaqaalaysiiyay hay'adaha